dhegaystayaal mahmaaha libaaxa iyo dhurwaaga loo saarayo ka sokow waxaa jira dugaag iyo duurjoog kale oo iyagana sheekooyin mahmaaha reebay maskaxdii soomaalidii hore ay magacyadooda ku mala awaashay dabadeedna ka mid noqday suugaan afeedda uu shisheeyuhu inagu kuunyo inana aynu kol walbaba ku faanno. dugaaggaas ayaa waxaa ka mid ah dawacada oo ah sida dhurwaaga bahal xoolaha reer miyiga u ugaarsata oo ariga waaweyn iyo baraarkaba aan laga soo gaarin. sheeka xariirada iyo guud ahaan hiddaha dadweyne ee caalamiga ahiba siday qabaan dawacadu waa wax dhagar badan oo dugaagga ka waaweyn sirteeda kaga badbaada haddii ay wax dhex maraanna kaga bursata. waa wax taag yaroo tabar iyo taag aan bahallada kale ugu babac dhigi karin. hase ahaatee meesha inta kale xoogga laga siiyey sida la qabo iyada xeel baa laga siiyey. waxaa lagu tilmaamaa xirgi iyo xirrib ay dugaagga kala dheer tahay oo maalinta ay qiilqiil gasho ay dabinnada halista ah kaga fakato. sheekooyinka dawacada ee ay soomaalidu taqaan mahmahdana reebay waxaa marahayga ugu caansan qayb libaax midda ku magacaaban ee mar walba sirta qotada dheer ee iyada lagu galladay lagu tusaaleeyo. waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayaa habar dugaag oo aan cidi ka maqnayn waxaa soo dhex maray neef geel ah oo ay disheen. libaaxa oo lagu sheego inuu boqorka kaynta yahay dugaag oo idilna u taliyo ayaa dhurwaa u yeelay kuna amray hilbaha hasha inuu qaybiyo. waa wixii hilib jacaylka ku fallaaye isaga oo aan u fiirsan bahalka la hadlayaa midka uu yahay isla markaasna degdegaya ayuu yidhi hasha ma bar mase bar libaaxaa leh barka soo harayna dugaaggaa leh. markaas buu libaaxii inta dhab u carooday waraabihii u gacan qaaday. wuxuu ku jiiday dharbaaxa xoog badan dharbaaxa dhulka jiifisay ishii midig oo kankoonsanna bannaanka soo dhigtay. dabadeedna isaga oo inta qowraladii muujiyey ilkaha isku xoqaaya ayuu dawaca u yeeray oo ku amray bal inay iyadu hasha qaybiso. kolkaas bay tidhi hasha ma bar mase bar libaaxaa leh. hasha ma darool mase darool libaaxaa leh. hasha ma waax mase waax libaaxaa leh. hasha ma rimic mase rimic libaaxaa leh. hasha oo dhan libaaxaa leh. aarkii oo tabtii ay wax u qaybisay aad ula dhacsan ayaa qosol farax ka keenay la dhacdiidsaday. wax yar kadibna intuu qun u soo toosay oo iyadii eegay ayuu yidhi dayooy yaa qaybta ku baray. kolkaas bay tidhi abti isha cumar ka lulata ayaan ku quustay. ama waxay tidhi dhaban dhurwaa dharbaaxadii ku dhacday ayaa i bartay. labada siyood sidii la doonaba ha loo yidhaahdee waxay jawaabtaas dawacadu noqotay hawraar ay soomaalidu mahmaah ka dhigatay. inta badan waxaa isku daafaca cabsi awgeed ruux wax aan qaban iska oggolaaday ama inta gar ee xanaqay dadka intii uu ku gabood falay ay dabadeed ku haaraantay kuna eedaysay. sheekadaas iyada ah hal abuuradii inta ku halqabsaday weliba ku garnaqsaday waxaa ugu caansanaa xuseen dhaqile gabyaagii lagu magacaabi jiray. waa darwiishkii fahmada looga haray ee gabayada sayidka inta kor ka qayba daraawiishta kale ay kasii qaybi jirtay. jabkii ururka kadib burburintii tareex ka gadaal sayid maxamed iyo dad 400 lagu sheegay waa kuwii iyaga oo qaxa buurta iimey isa sii taagay. ciidan ahaan sidii ay dib isugu abaabuli lahaayeen iyaga oo ku hawshoon waatuu hogaamiyihii geeriyooday. dabadeedna waa tii sida foosha xun loo bililiqaystay. caruusadii ay maganta u ahaayeen waatay xoolihii ka boobtay dumarkoodii qaarna ay qasab kaga guursatay. naada buraale oo sayidka iyo khaliif oo walaalkiis ahaa ay kala dumaaleen ayay xoog kula aqal galeen. wax yar kadibna jamaad cabdilla xasan ayay madaxdii caruusaad isku qabsatay oo anaa ku habboon iyo maye anay igu fiican tahay ku murantay iyada oo aan dan laga lahayn gabadha iyo qoyskii ay ka dhalatay inay guurkooda ogol yihiin iyo in kale. maantaas iimey lagu rafaadsan yahay xuseen dhaqle ayaa madax u ahaa
haraagii daraawiishta ee halkaa ku sugnaa. xil aad u weynise wuxuu ka saaraa daryeelkii iyo tabantaabada maatadii reer cabdilla xasan oo ay ahayd in si gaar ah loo dhowro. xuseen dhiqle isaga oo ka caraysan sidii naada buraale looga faramaroojiyey ayaa waxaa maalintii dambe u yimid guriga boqortooyada caruusada nin ka tirsan, kaasoo ay dantiisu ahayd in jamaal cabdilla xasan la siiyo. markaas baa wax uu ku jawaabo xuseen laga madoobeeyey. tabar iyo taag uu maya ku yidhaahdaa kuma soo dhowaan, carab uu hala yeelo ama uu hawraarsan ku dhahaana afkiisa kuma jiro. suu wuxuu isula ekaaday dawacadii uu libaaxu soo qabsaday ee ku yidhi dayoy hilbaha inoo qaybi, dabadeedna isagii wada siisay. soo markii haddaba la gabi jiray ma aha, waa sida ruuxeede. kolkaas buu cali inteley oo ah ninkii gabadha soo doonay inta ku halqabsaday gabay ugu jawaabay. gabay maantaa kadib aad u caanbaxay, arartiisuna ay ku dhisan tahay sheekadii qaybi libaax. wuxuu xuseen yidhi: qiyaashow libaax baa dhurwaa, qaybi yidhi soore wuxuu yidhi hilbaha jeex balqalo, qoonnan baa nahaye. markaasuu qababaalihii qoonsaduu dileeye dharbaaxuu il kaga qaaday, uu hoor ka soo qubaye afqashuushle. goortuu dhintay yuu sii qataabsadeeye qambaruudhsi iyo oohin buu qoon dunuunacay. dawacuu kolkaas soo qabsaday sida qisaaseeda, iyadoo qarqari buu ilkaha qoorqabkii xoqaya. wuxuu yidhi qanjaafulo xuney tali qadaarka, adeer gacalle, qaar iyo dalool, qaaxa iyo feero, qumud iyo baruur iyo leg iyo qowdhihii kuruska kuu wada qorsheeyaya islow neefka wada qaadabay. waxay kaloo ku sheekayn jireen in maalin maalmaha ka mida ay dawaco soo gashay aqalla duddo ah oo dadkii lahaa ceel iyo carshinba ay xoolahoodii kula maqnaayeen. malaha baraar ay cunto ayay idagtii waxaraha ka weydayay. aqalladii midkoodba inta dalaq tiri waxay cara kula dhacday xarga iyo suuman wixii yeel ahaa oo udbaha iyo dhigaha isku hayay. rarka gaadiidkana dhaan iyo geediba aan qoys ka maarmi karaa jirin. nag bay ka dhigtay, jil yarna uma ay reebin. dabadeedna yaan lagu soo gaadhin way isaga tagtay. fii dambe goor ay tahay ayay ka soo ag dhowaatay isla duddadii ay maanta cidlada ku ogeyd. caawase dad iyo duunyaba loo soo wada hoyday. waxay dhegta u dhigtay niman saaka reeraha u sahmiyey oo inta ku soo noqday u guddoominaya waagu hadduu baryo in caynka hoosta laga geliyo, xoolahana loo raro cusub iyo tigaad ladan ruuman ay ku soo arkeen. dawacadii baa kolkaas inta qosol yaryar ku dhufatay waxaa ka soo fakatay mindhaareer aan ogahay ma guuro, oo ay ula jeeday maanta duhurkii reerkii ay sida gaarkaa u waxyeelaysay ee ay yeeshii ka wada cuntay. taasina waxay noqotay hawraar lagu maahmaaho oo qofka ku soo dhici karaysa mar walba oo uu arko cid lagu dhex jiro oo nacab ama nacas ku ahaadaba qolyo aan wanaaggeeda wadani ay maamulkeeda wax ku leeyihiin. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.